السلام عليكم أصحابتي meel kastoo dunida ka joogtaan bal saaxiib ku soo dhawaada ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta ciyaaraha Jimligu la ciyaarayo min Chelsea ilaa iyo Mourinho ishaya waxaanu eegi doonaa warbixinada ku aadan Real Madrid cabaad baa ka soconaya cidii waxay leeyihiin saan ay soo dhaano haddaanu jabno maxay tahay jawaankana laga dhalinayo runtii waxaanu eegi doonaa warbixinadii ugu dambeeyay Manchester United iyo Liverpool runtii oo ay xaaladdu ku xun tahay ninkii Verts ahaa waxaa loogu baaqayaa tababaraha Liverpool in gabi ahaanba ninkan kooxdu ka yimaado dib ugu celiyo iyo waxaanu eegi doonaa akhbaaraad kale ku saabsan guud ahaan Kamal Daariga asxaabtay subscribe-ka noo saar kuwa channel-ka su'aal ku jiray share-ta iyo like-ta isku dirkan saxabka ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina waan islaamada maqaarka baan eegi doonaa xuyaan soo gud barnaamijka waxa qaadanaya Kamil Light Protein kalisan waxay baa caawinaya caafimaadka qofka sida vitaminska iyo mineralka sidoo kale waxaad kalisan borotiin noocyada kala duwan bal kala xiriir telefoonada shaashada kaga muuqanaya bal ciyaari baan eegi doonaa waxyaan habeenku Chelsea iyo waxa kamida iyo Benfica ciyaaraha dhacay ciyaartan waxa xiiso u yeelaya Jose Mourinho oo nin howlkar ah dagaalyahan weyn oo Chelsea soo tababari jiray ayaa kooxdii ka hor imaanaya kooxda xilli ay ku jirto xaalad xun ay ku jirto yaantan marka ciyaartu waxa xiiso u yeelaya Mourinho ayaa Stamford dib ugu laabanaysa wuxuu yiri hadaad soo dhaweynaysaa macalinkiina horay ahay waa idin la soo guuleystay ciidamadii ciidamadaysa okay wayaan hadaadan ciidamadayna waa iska okay wuu macnaa hadaladiis waxa kamid ahaa anigu waxaan u dareemayaa halkan gurigeyga inuu yahay Chelsea waa home-keyga wuu macnaa laakiin in badan anigu ma ihi blue inkastoo hadalkiisu kow mar uu yiri ma taqaanaa yaa anu marba blue ayaan ahay wuri macnaa kadib hadalkiisu inta ku daray kan waxaan u dareemayaa gurigeyga marba blue baan ahay balse in badan blue ma ihi hadda qofku wax fahmi karaa wuri maxay anigu imku reed baan ahay oo Benfica baan wataa inaan baday baan caawa rabaa inkastoo kooxdan legend aan ka ahay ayagu ma taqaanaa ay iga soo dhigeen macallin weyn anna aan ka dhigay koox weyn laakiin caawa anigu iyagaan u socday inaan dhibca ka qaato leeyahay runtii oo Chelsea loo kala fakanaya oo waxaan ka hadlaynaa Champions League dunida Mourinho uu arkay wuxuu leeyahay kuwan wala shaxaadi karo isleeyahay runtii yaa inkastoo yiri Balmer ka maqan wuxuu yiri hadii Balmer ka maqan kuwaas balaheliyaal uu ciyaariyana fiican bay haystaan buuri yaa ma anagoo kale miyaa uu jaabi ilma yar haysana oo bedelkooda heli karin jawaan ciyaariyana haystaan buuri macna Chelsea sidii sanadka soo dhaaf Arsenal oo kale dishbilin xumo ayaa ku dheelaysay dhaawac ibtilaa haysata Arsenal ibtilaa ay ka reebtay iyo Rose qaadasho xagaga la soo dhaaf Real ka reebtay season-kan Premier League laba ciyaarood ay badiyeen 6 ciyaarood 9 dhaawac ayaa galay laba red card bayna qaateen Saudi tababaradu maruu hadlay wuxuu yiri ma taqaanaa mushkiladana haystaba oo ciyaaruna laga badi u soo fiirsado yiri macnaa waa maraan Rose qaadanay macnaa ciyaaryahanadu wuxuu ugu baaqayaa warin ciyaaraha iska dilna ma ahan Arsenal hawshaan ku burburtay oo iska soo dhaafeen Rose la daldalaysay Saudi wuxuu bilaabay inuu u waco kooxda oo yiraahdo horta statistics ka la keeno inta ciyaar hadana la soo dhaafin laga badiyay bal aan fiiriye kulaha markan saakay kooxda aan la fariistay yaa waxay tusiyeen statistics-ka 6 bilood ugu dambeeyay oo laga badiyay 5 ciyaarood 5taas ciyaarood 4 ciyaar kamid Rosan qaadin uu macnaa marka wuxuu yiri kulli fidna cindigal intan haysto red card wayaan buu macnaa asu wata dhinaca kale wax weeyaan Madrid ayaa la ciyaaraysa koox yar oo yiraahdo Kayrat tababaruhu wuxuu yiri ma taqaanaa hadda kulli 100% ciyaarta u diyaar garoobeyna macnaa easy macnaa ciyaarta in ma yasayno macnaa banoon naclaabo ugu yaan ma jirto marka ciyaartan uu ilmahan ciyaareyno easy game ma noqon doonto macnaa waxaan ugu diyaar garoobeyna ciyaarta 100% ciyaarta waxa la sheegay in lagu cumadi doono ninka Rodrigo la yiraahdo oo mararka qarkeedka looga tago iska kacsan asaga bixiyay sanadkan bixiyay waxa u dul qaato Madrid waa la qabaa bax laga ma karo yaa Madrid lagu waalan yahay hatta danu boos ka helin xilli waxa weeyaan aad arkayso runtii ninka la yiraahdo Valverde in sax ugu dambeeyay wiri kadib caabti weyneed 70 sano kadib ka soo gaartay darbiga Madrid darbi wuxuu yiri sidaan isu dhaano saan macquul ma ahan macnaa wuxuu yiri waa in ciyaaryahan walba 100% uu kooxda u dagaalaa wuri macnaa waxaana soo maray ciyaari ugu dambeeyay wax fadeexad ah TBC iyo tii hadda dhaweed buur macnaa waa inaan midownaa si ma taqaana si uu noogu dhamaado si fiican sidoo soo dhaafay koob laan la baxay marka ninkan wuxuu xataa hadalkiisa ku daray wuxuu warka sheegaya inaan anigu iri tababaru ha idaalin boos kastana iga ciyaarsiin asaga sanadka wuxuu ahaa meesha la laga ciyaarsiinay anigu waxa la soo baxay war sheegay ninkan uu diiday in possession walba laga ciyaarsiiyo haduu been wuxuu leeyahay warkaas waa been xataa waxaad weydiisaan buuri tababaru aniga isoo tababaray waxaad weydiisaan inaan dhihi jiray weydiiya anigu booska dartaan iga ciyaarsiiya waxaad rabtaan baan idin sameeynaya hadda warku aadan buuri Madrid inaan ku iri anigu intaan kadib ha idaalinna meel kasta iga ciyaarsiin oo position-kaga ahayn warkaas waa been nuuru waxba kama jiro wax walba macalinka yiraahdana waan u sameeynaa marka ciyaartu wuxuu ugu baaqay war wuxuu sidaan isu dhaano haddaan jabno jawaana laga dhaliyo habeenkaas macquul ma wata ma loo dhahay
أنا عيار كلا إسكت بسنة يور وطا إيش أكو سي هاي مدريد ور كده معناها قدال بانسي مرسنة إلى النتيجوين كهرب ما دام شيء marka ay waxaan dib bar waxay yiraahdeen mugtay ciyaarta markaasna afar gool bay maraysa runtii ma dhigi kara ciyaartu way soo dhamaatay oo iska sii sugay macna qaybahan kale ingiriiskan sii garaacay iyaga warkooda ku jiray way ugu maadilay macna waa yaabay markaas wataan lahaa war nimankan hadday jawaan gool ma laga dhalinaya ya waa lagu farnaya un goolalba marka calay xal saacad ugu dambeeyay hadana waxa la sheegay war kale xun Madrid Spanish Barca waxa la sheegay inuu ka dhici doono Jeddah 2026 horaanteeda marka sanadka cusub marka la gaaro Spanish marka ayaantan xaggaas loo wareejiyay haddaba si la sugaada ma taqaana lama yamal ay saaxiibkiisa oo isku bari waa la isku aadiyay Atletico Bilbao Real Madrid iyo Atletico Madrid oo la isku baagay Barcelona iyo Real Madrid kaliya final kulmi doona season soo dhaafiyo kale ya marka Real Madrid horta waa in Atletico soo dhaaftaa waa nimankii toddobaadkan ka kiciyay 5 gool waana markii saddexaad taariikhda historiga Atletico kuwanu 5 gool ka kiciyaan waana tii Simeone iska oo yiri ورما مدريد بان جوان جول كدلي ورو معناه حلي توبرو بارشو كفانا لاعب كيس بدري wuxuu ku tilmaamay ciyaaryahan special player inuu yahay waa timaal loo baldoorku ninkan aan lagu cimaamadin kaalinta ku idnaad la geliyo wuxuu yiri inta badan waxay dadku qiimeeyaan bur ciyaaryahanada afka hore ka ciyaara ay qiimeeyaan bur macnaha oo waxay ku qiimeeyaan ciyaartooyga kaasu goolasha dhalinayaan iyo goolasha caawinayaan waxa kale laakiin ciyaartooyga khadka dhexe ahmiyad lama siiyo Bruniga waxba laga moolan buuniyo Sacuudi markuu wuxuu ku tilmaamay Bedri inuu yahay ciyaaryahan special wuxuu yiri waa ninka teembada kooxda dhan haya teembadayna dhan asaxaya wuru macna asaga iyo Frank de Jong waa labada nin buuro kooxda haga ya aad baan ugu raaxaysanay wuru maqaarkooda waxa uu yiri ninkan waa ciyaaryahan special player wuru ciyaaryahan weyn buu ku tilmaamaya marka wuxuu leeyahay teembada oo meesha ka socoto Bedri waa sababta ismaal ilahay ku nasiibsaday inuu Bedri ka dhaawacmin hadii kale waalidii yaaba xili Barcelona diyaarnay sidoo biishi xili kulka wada dhaawacu yahay ma ilaabi kar darbigan berigi Barcelona ay nimankan 6 gool ka kiciyeen hadda laakiin ayaantan dambe Barcelona loo soo dhigtay biishi baa badinaysa ciyaari ugu dambeeyay bal waan arki doonaa markay isla ciyaarayaan arbacdo intaasna waa inta ingiriiska Ruben Amorim waxa habeenkan arkay barnaamijka Monday Night-ka ninka raado Jamie Carragher ayaa ugu baaqay madaxda Manchester United wuxuu yiri war hooy goor hore wayaan bur ninka had kooxda ka raadeeya ya wuxuu ninkan ugu baaqay Ruben Amorim in United goor ay raadiyaan intii goor tahay ya hadii kale wax wayaan bur waa ka sii dareysa xaaladda kadib ninkan musiibo kale oo kooxdu ku habsanaysa oo intuu joogo Sacuudi Meeroni wuxuu yiri ninkan kooxdan soo celinaa wuri ما آمنسني يوري معنا أنتنا قلت كم بحنا إن كان كوحدنا توسي كرا يوري معنا ما ينسى كل سنة شيء سنوات بيكونوا مستن يمكن أفر يتبنات بالمرة يا بس ساعدنا مركا نيكا وحول كل تري كوحدة ما ينويت إني جور تاي إني سكت جارتو وإنك كلا بحان هدي كلو حوري عيبتان يفضيحدان وكسيدري يسوي سيربيل إلى هذا يوري معنا مدة كلا يونايتد سنترن بيلع عياري دونان كدبنا ليفربول بيلع عياري دونانو مركو حوري نيكا إسكافو ضايع ورهوي عالم ديسان كدرين أو يملحون جارين oo 20aad meelood ay soo xireen macna ama meelahan u dhaw baruntii ama siska meel xun ku dhamaysanba xil Ferdinand sidoo kale ugu baaqay ninka madaxda inuu iska dhaafo ninka wuxuu tagay aniga shaxdeed ma bedelay aniga hadii madaxda meelood ugu jiraada xataa shaxdan bedel waa iska baxay waraaniyo ninkan macnaha wuxuu adkaysanay ma taqaana in la raacday warbaano macnaha ya ifuday ka wada war maalin kasta wuxuu leeyahay war shaxdan iska bedel shax khalkhalo ala qaba 3 4 2 1 ala qaba macnaha waa shax isku wareersan waa dadka waxay fahmi karaan kuma ciyaaraha tan ninkan marka ninkan bedel Real Madrid wuxuu bedelay waxa ka fududeen in raacdeeyaan warna in raacdeeyo iska fududeeyo marka ninkan wuxuu taagan yahay Ferdinand ninkan wuxuu baahan inuu shaxdiisa bedelo ya ima waxa uu leeyahay runtii xaaladan ma isbedelayso macnaha ninka la raado Ferdinand baa sida ka qaba ya wuxuu ninkanu markuu kooxdan imaanay November 40 jirkan ayuu shaxdan la yimaaday mudaas shaxdan waxa looga badiyay 17 ciyaarood 3 ciyaarood oo ciyaar Premier League 9 ayuu ku badiyay marka wuxuu leeyahay ninka kan ya war wuxuu yiri meeshan ma yaalan wax qaacida science ah ama wax aan wala bedeli karin ma yaalan shaxda ninkan Manchester la yimaaday kama shaqaynayso ayuu yiri macnaha waxa uu roon inuu mataqaan dhaxda buuxsado haday tahay Casemiro Ugardi Kubmayno hatta gishto afka hore Bruno iyo wax kula lamaaniyo ama Kunya Mbumo Ahmed ya saas wax la garanayo laakiin maanta aan la walaaqayo marka ninkaasna waa u digayo waa ka kulay saaxiib dambeeyay barnaamijka Monday Night habeenka ee waxaan arkay runtii Duncan Ferguson iyo Jamie Carragher ay habeenku lagu marti qaaday markaas ayaa codayn la sameeyay waxa la weydiiyay hadii Man United la weydiiyay taageerayaasha Devils ya ma Amorim waqti baad siinaysan mise hadda ayaad ciirinaysaan marka waxa weeyaan ha imaya marka ha waxay yiri 46%
waxay yiraahdeen yaa waqti aan siino halka 54% yiraahdeen maya ninka waqti ma siinayno marka dadka Manchester United taageero way ka caddahay ninka waxay taageen ha iska baxo laakiin Duncan iyo Jamie Carragher ayaa ku maadsaday wuxuu Duncan wuxuu leeyahay Duncan Ferguson wuxuu aaminsan yahay dadka yiraahdeen yes wuxuu ri aamin uu taageerada Liverpool wayaan buru macna oo raba ninkan kooxda iska hayo dudumiyo jijibiyo iyagana ku baashaalan isaga maadsadaan maalin kasta marka wuxuu leeyahay dadka dhahay yes oo ah ninkan time hal la siiyo aamin uu wadada Liverpool meeshii qosol baa ka dhacay beenko marka waa ka hatta waxa la sheegay Chelsea ku tartami doonaan weeryahanka Juventus Vlahovic ya general la gaarin ay Chelsea Manchester weeryahan saadan ka hadlayaan marka ninkan ay xiisanayaan baa leey runtii oo Juventus diyaar u tahay inay bixiyaan si kala inay iibiyaan bay rabeen waa si kan bilowgiisa laakiin lacagii ay rabeen bay yani ku heli waayeen baa leey ninka waxay doorbidaya marka January inay fasaxaan ninka Juventus siiyay macnaha 6 ciyaar season kan 4 gool laakiin booska waxa ku haysta ragga kala ah Jonathan David iyo Obenda tababaraha marka kooxdaas Igor Tudor laacibkoodii hore ragga abu ninkan booska yani challenge ku gelinaya markii uu iska buuxin doonayo waa ninka 62 si Juventus 15 uu caawiyay 151 ciyaarood tan markuu kooxda yimaaday 3 sano ka hor marka iyaga iyo Chelsea ba January ninkan bay isku hayaan baa leey runtii taa wata ekatiga isaaqna waa kuwa xir saxibtin bay ka abuurayaan baa leey tababarka kooxda Liverpool inkastoo aanu la isjeclayn labadoodu ay ma taqaan yani uu ekatiga tag dareem markii isaaq la keenay haddana waa kaloodayo waa ka saacad ugu dambeeyay ninka kan raaligelin buu ka bixiyay toddobaadkan ileen asaga laga tabitay ninkan waa la tabi kor ninkan khatar wada isaaq ku mashquulsan ninkan shaqo diyaar u ah ya isaaq xaalad fiican kuma jiro tababar badan ma qaadan xariifkana maqnaamiya toddobaadkan Liverpool wuxuu leeyahay waxaan ugu doortay kooxaha kale sida United iyo Newcastle maxay Liverpool waa champions ya ciyaarana fiican baysta historic fiican baysta dooqa aan sameeyo leeyahay waa dooq saxan buri optionka aniga ii fiicnaa weeyaan buri macna ma aniga Liverpool caafimaad qabto u jeedaan dadkaas aadaya buri macna marka waa ka xilli sidoo kale uu sheegay red card kan qaatay mid aqal ku dhisamaan wahayn buri waa tababar xataa weeyro stupid nima weeyad buri macna ilaa tababar wuxuu la qeylin ninkan ba ciyaarta ka maqnaan karay oo ka maqnaanay marka wuxuu aad ba u nijibsanaa tobaadkan buri markan wiilashu daawanay iyadoo laga badinayo ya marka waxaan riyaal noqda laakiin mar dambe dib midaas u dhici doonto macnaha hada kadib waan ka fiirsanaya buri ya marka wax weeyaan in Liverpool tobaadkan la tumay Real Madrid la tumay waxa ka dhigan tahay Bayern Munich baa kooxda kaliya ee perfect record ku bilaabatay ee wada badisay ciyaaro oo dhan dadka kale bareejo iyo guul daro ayaa ugu jirta xilli sidoo kale Chiesa oo bariyaha xataa lagu moodmooday uunan qayb ka ahayn ciyaartooyga Liverpool Champions League u safray ee ciyaaraya sabab ku aadan ninka kan in uu ma taqaanaa dhaawacmay haddana cisbitaalay ya waninka lagu baxsanay ayaantan asaga Jota dadku ku noqdayba 4 gool kooxda siiskan 2 uu dhaliyay 2 uu caawiyay oo ay ku jirtay toddobaadkan xitaa marka ciyaarta ninka bareejay buu ahaa mid kale Liverpool waxay aad taageerashooda ugu nijabsan yihiin horta moogta Liverpool mucaaradow Liverpool dadkay soo gadatay dhan ma shaqeynooyin kirkaska mid kale si fiican uma shaqeynayo Vertska waa ka taala gool caawin la dhalis laguma hayo isaaq hadaad fiiriso ninkaana wax ka soo socdaan aad u daala dhacaya nin daal baa ka muuqanaya marka Liverpool iyo dadkii hore ka tageen iyo kuwan yimaadeen waxba saameyn aan ku lahayn ciyaarta ayaa nimankii hoos u dhigaysa oo ciyaaruhu ay u muuqdaan in laki ku badinayaan waa sidoo tababaru tobaadkan bixirtay mid kale Verts ayaa hadda tooshka lagu wada hayaa hadda waa ninka kooxdan markuu yimaaday ilaa hadda waxba aan keeninba hal gool ku lug lahaa 8 ciyaarood Liverpool ciyaartartamada dhan hal gool lama caawin hal gool lama dhalin waliba ninkan xaaladdu waxa ugu soo diray ugu dambeeyay Rooney ayaa ugu daray wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Verts wuxuu dhibaateynaya uu leeyahay runtii systemka Liverpool ay ku ciyaarto ayuu dhibaato ku yahay ninka kan ya waxaanu doorbidayaa inta ninkan la ciyaarsiin lahaa ninka la yiraahdo Szoboszlai in la ciyaarsiiyo ayuu doorbidayaa marka wuxuu ninkan u qabaa ninka markuu iimaanay wax badan baa laga filayay ninkan wuxuu waa nin tobaad yani siisaki 10 dhalinay ka badan 10 ka badan caawinay marka ninkan wuxuu qabaa in tacticadan Liverpool ama ninkan uu luminay gabi ahaan balance kooxda Liverpool dhan ninkan ayaa luminay macnaha tan markuu kooxda Liverpool baa xafiirsta waxa ku sii dheer ciyaar walba inuu ninka la yiraahdo slot uu bedelay marka ninkan waxa weeyaan isagana motorka uu ku cilaa waa ka isbuucan goolkii Arsenal xilli dambe ay dhaliyeen wuxuu ka dhigan yahay 9 gool in la dhaliyay toddobaadkan xilliga extra time-ka dhamaadka ciyaarta oo saajinta wixii ka dambeeyay ya Haaland baa ku jiray xitaa Gabriel baa ku jiray Nketiah baa ku jiray runtii xilli Arsenal ay ka faa'iideysanayso runtii wali maarday ninka kan Gabriel watan indiri ninkan wuxuu u shaqeeyay qaabkii John Terry iyo ragii madaxyada Ligi Ramos iyo
بيول iyo ragii faraha badnaa ee madaxda soo bixi doon dhalin jiray ninkan waa qatar ninkan wuxuu ka dhalay Premier League ya gool ka badan difaac kasta markuu Premier League saftay 2020 wara ninkan asaab wariyahane war ninkan 18 gool Premier League ka dhalay ka war waya warka haduu Premier League sii joogo waxaan ba ka baqayaa difaac uu goolash badan Premier League inuu isku qoraan ba ka baqayaa ya ninkan caadi ma ahan be 18 gool ayaa la ninkan Gabriel ah ka badan difaac kasta marka inaba caadi maaha waliba taadkan aragtay marka ciyaarta ugu dar waxa arkay soo dhahay deeqadaha sheegaya dhahaya ya sideed baa lagu daray milix baa lagu daray soo dhahay saan dhahay baa arkay taadkan oo dhahay wali waxaan ku qabsan karnaa waaw wala weyna sameeyay wuxuu wali waan sameyn karnaa markii deeqadaha ciyaarta lagu daray deeqada uu sheegayay saawadu ma xataa wuxuu artay lahaa ya sida biologiyada waxa jira eray yar oo hadii xataa isku fahmayaan hadii loo sheego biologiyada waxa jira macnaha haddana waxa jira eray ciyaareed aan leenahay terminology waxa jira dadkeen ciyaaraha oo yaani jecel ama igala socdo kale ama aan wada naqaan sportiga terminology waxa jira caana had sida caan waxa ku jira hebel ama uu ku wareegay ciyaaryahan heblow kooxdaas gadatay waxba caana warniyo waxa weeyaan ciyaaryahan heblow marada ka dhacday kooxdaas habeenka xalay marada ka dhacday waa terminology isku naqaan hadii qof kale oo ciyaaraha aqoon u yimaado waxay tahay maradan la sheegay waxaan dhacay ayuu leeyahay runtii arigu wuxuu leeyahay hadda waxa la tahay wuru macnaha sida waxaan rabaa in qoliyaha diyaaradaha biologiyada kale iyo qaabka isula xiriiraan oo kale inaan teamkii wada xiriir inaan bartaan rabaa macnaha oo aan nimankaas qoorada la fariisaan rabaa macnaha si ma taqaan ciyaartooyga garoon ku jira xataa iyago garoon ku jira aan la sugin ba kambi baan u sugin ba oo aan ba u wacan ama qaybta biyaha inta la cabay aan u sugin macnaha waynaan helnaa wuru terminology wax yaani eray aan isku fahmi karno balado kale wax yar hadii ay eray waxa jir isku fahmayaan oo hadii xaalad danger lagu jiro hadii xaalad kale lagu jiraba yaa ay yani isku samaatay bixi karaan marka ninka wuxuu yiri wax badan soo socdo tagay sanadkan marka waa ka Man City madaxad ya Pep Guardiola madaxad ka baa jooga ya warigiis ciyaaryahan macshan cid kasta wuxuu leeyahay madaxana iska baxo ninaan dantiis ogeyn saas waa dantaada markaadan ogeyn saas waa haddana waxay marayaan dhamaadku ayahooday marayaan Alvarez waxa uu kamid ahaa raggii Man City ka tagay laakiin la tuutuugi karay laakiin Pep intan Bruno soo akhrinay wuxuu dhigi jiray warigiis madaxana anigu ciyaaryahan ma barayo aqli ma hayst marka kibira kugu jiray u dulqaado labadan sanad uu heshiis ka siixay naagtaana waa habaartay oo waxay tiri Man City naaka ku noqoto labada sanad heshiisku ku darin kan saan lagu dhamaanay qab iyo xushtaan lagu dhamaanay macna ninkan wax ma laga filay daacadii sida u badan tahay daacadii hadaanu wasaaxdu waxa arkay tawbaraha Chelsea ma la raacdeynayo asaga ay ku kalsoonayeen ilaa isaga inta dhamaanay isaga tawbar ahaan yeel ribna ma la raacdeyn doono ilaa baa lagu macna hadaysan dhicin wax mucjiso ah hadaysan dhicin ma la raacdeynayo go'aanka saas u ahanaya kana inay mucjiso dhacdo mooyaane nimankan labadan saninkan ugu dhiman qabi xushtaan ku dhameystirna ya ninka wuxuu tagay heer yaani in raado out raado macna guuliso ku badbaadaya asaga biiri hadan koox kale joogo marka la raacdeeyo macna ninka Alvarez la yiraahdo 42 gool ayuu siiyay Atletico Madrid dhalisi caawin tan markuu kooxda ka tagay kaliya haalan u baa ka badan runtii ya 40 bal fiirmeesh soo maray Madrid ayaa soo joogtay waraana Zidane soo aragnay Zinedine Zidane soo arkay aniga saddex sano xiriir jamhuriyadda qaaday maxaa lagu qaaday saf jawaana lagu qaaday keedkan laacibina buuxay line up kan ciyaarina buuxay aqliisu ugu joogay Bale rag badan iska fadhiidaya Benzema rag badan joogo Alvaro please ya akhi imam ya akhi please allo macna ciyaarina sasal isku ceshin jiray meesha ninkii xanaaqada baxle loo macna baxle loo bal markii baxle kan baxde maariski baxde oo dadkii dhan baxde waa meesha ku soo hartay jabhad oo inaha wada mirig ka siinaya oo xoogsatayaal wada ah xirfadayaashu hada kor maxay leeyahay furmad qana waxay yiraahdeen sanadaha suraalka naga qaadaysay waxay nagu garaacayeen xirfadlayaasha laakiin hadda already Man City xirfadlayaasha sida De Bruyne sal u soo qaatay Jamie Carragher wuxuu yiri waxay haysteen De Bruyne oo ninji ka toor ahaa oo kubada badan caawinay oo afka hore gool kubada abuuray ay haysteen buri ya marka waxa sanadii dambe oo kala nasiib daradaas haystay watuu dhahay xataa ma xasuustaan sanad markii hore ka farad la qaaday wuxuu yiri De Bruyne baa soo kacay yiri war baa noo yaala yey wuu soo kacay horeelkan waa la qaaday macnuhu xirfadlayaal ay khamiistay already maanta Man City waxa weey markaad kooxaha kale markaad u barigto xoogsata Man City ay ka buuxda xirfadlayaal kale kooxay ku jiraan marka ninkan la fasaxay war ma ninka Atletico inuu Brazil ku shubay isbuuc hore hadda soo dhaliyay marka waxa weeyaan hadaanu mucjiso dhicin baan ka hadlayaa hadaanu mucjiso dhicin dadkan qabtaan xushtaan lagu dhamaanay ya waayadan waqti dheer marka ninkaas ayuu fasaxay ninka ayo waya Hilal waa kan arkay Hernandez rag badan oo Milan ka tagay ugu jiray isteed hadda Milan Allegri Realka uu la hogaaminaya kooxda Napoli saasoo tahay Hernandez caaw gool bulay Hilalna way badiyeen Asi Champions League sanadkan Ronaldo ma ciyaaray wala Champions League wala Asi Champions League labadoo ma hayo waa asxaabtay waxaan idin leeyahay nabadgelyo